qaabka aad u seexataa waxa uu sheegayaa shakhsiyadaada iyo dabeecadahaaga hoose ee aan la ogeyn. haddaba afartan qaabka aad u seexato adigu commentiga hoose nagula wadaag. haddaba daraasadani waxay soo bandhigaysaa dadka u seexda afartan qaab iyo dabeecadahooda hoose ee aan la ogeyn. haddii aan ku horeeyo sawirka koowaad, dadka u seexda dhinaca waxaa la sheegay dadkaasi inay yihiin dad bulshaawiyiina oo ku wanaagsan isdhexgalka bulshada. sidoo kale waxaa la sheegay inay yihiin dad leh saaxiibtinimo oo la saaxiibo qof kasta oo bulshada ka mid ah. sidoo kale waxaa la sheegay dadkan inay yihiin kuwa aad isugu kalsoon oo hadal yaqaaniina, waa kuwa dhinaca u seexda. haddaba dadkan waxaa la sheegay inay leeyihiin hal ciladaasina waxa ay tahay waxa ay aaminaan dadka kale oo wax kasta oo loo sheego si fudud ayay u qaataan oo ay ugu qancaan. haddii aan ku xijiyo sawirka labaad, dadka u seexda dhinaca ee lugaha iyo gacmaha soo laaba ee gebigooduba saa isu soo laaba ee isu soo yareeya sida sawirka ka muuqata, dadkaasi waxaa la sheegay inay yihiin dad qalbi wanaagsan, daacad ah, dadka cafiya, naxariis badan, sidoo kale jecel in la fahmo oo la dareemo. haddii aad sidaasi u seexato, qof wanaagsan oo nasiib badan ayaadba tahay. haddii aan ku xijiyo sawirka saddexaad, dadka u seexda beerbeerka. dadka beerbeerka u seexdaa waxaa la sheegay inay yihiin dad soo jiidasho leh, sidoo kale maskax furan, kuna wanaagsan hogaaminta. sidoo kale waxaa la sheegay inay yihiin dad aad u adkaysi badan oo u adkaysta dhibaatooyinka. haddii aan ku xijiyo sawirka afraad, dadka u seexda dhabarka ama jeegada sidaasi u seexda waxaa la sheegay dadkaasi inay yihiin dad aad u adag oo qalafsan, sidoo kale dad aamus badan inay yihiin. sidoo kale waa dad aan jeclayn buuqa, dantoodana aad u yaqaana. sidoo kale waa dad jecel kelinimada. waa dadka u seexda dhabarka sida sawirka afraad aad ka arkaysaan. haddaba afartan qaab, adigu qaabka aad u seexato commentiga hoose nagula wadaag.